magacayga halkaan ku xusi kari maayo waayo waxaan ka baqayaa in aniga iyo reerkaygaba dhibaato naloo geysto laakiin waxaan idin sheegayaa sheekadayda waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay ugu yeeraan kufaarta oo macnaheeduna yahay tan Ilaahay ka furatay haddaba ku soo dhowaada sheekadaydan qusays oo aniga igu dhacday nafsadayda aniga waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo ku dhalatay kuna soo barbaartay geeska Afrika dadka badanaa waxay u maleeyaan inay Soomaalida wada yihiin muslimiin badanaa waxay u maleeyaan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida ay mid yihiin dadweyga Soomaaliyeed waa dad aad iyo aad u jecel oo noloshana wadaagaan oo aad iyo aad u soo dhaweeyaan مثلا hadda ka hor waxaan deganaan jirnay hal meel aniga iyo reerkeena iyo awoowayaashay abtiyaalkay iyo adeeryaashayba dhammaanteenba halkaas ayaan ku wada nooleen inkastoo kal meel aan deganahay haddana waan isku warqabnaa taas oo ah dhaqankeena markaas kadib ayaa anigoo dhiganaa dugsi sare aabahay dhintay sidaas daraaddeed ayaa adeerkay oo deganay dalka Mareykanka kula wareegay xilkii reer sidaan dhaqan ku leenahay adeerkay aad ayuu ii jeclaan jiray sidaas daraaddeed wuxuu go'aansaday inuu magaalada keeno si al unu noolaado reerkiisa caruurtayna oo dhan iyo caruurtiisii aniga ayuu ii jeclaa waayo adeerkay wuxuu aaminsanay in aniga mar wax u tari doono nolosha reerkeena oo weliba ummadda Soomaaliyeedna bedeli doono kuwa ka tirsan reerkaynaga ayay markay maqleen arintayda ka xumaadeen markaas ay yiraahdeen gabadhaas waa in adnin ku dartaa oo ay baadiyaheedana joogtaa magaaladana la geeynin si ay u fasaadin runtii fikradooda way toosneed maxaa yeelay waxaan magaalada kula kulmay dad aad noloshayda u bedeli doono yaraantaydii waxaa liigu soo tarbini jiray in ay Soomaalida mooyaane dadka kale oo dhan ay gaalo yihiin waxaa kaloo liigu soo tarbini jiray in ay yihiin Kiristaanka kuwa sameeyaan sharta aan ka daawanno filimada iyo telefishinada laakiin waxaan magaalada kula kulmay dad Kiristaan ah oo aan daras ahayn kadib waxaan ogaaday in wixii ay iga sheegi jireen diinta Kiristaanka ay been yihiin waayo ma ay sameynaynin waxyaabo xunxun ee kuwa Ilaahay ku furtay ay sameeyaan sida zinada iyo sarqaanka inkastoo dadkii iyagoo aqoonin ay soo dhaweeyeen waxay u tuseen jacayl aad u weyn markaasaan su'aale waxaana ku yiri idinka muslim baa tihiin mise maxaa yeelay waxaad tihiin dad dhaqankoodu ka wanaagsan yahay muslimiinta kadib ayaan keligay ku fikiray runtii hadiiba dadkan Kiristaanka ah dhaqankoodu sidaan yihiin aaway xumaantii la iga sheegi jiray waxaan arkay marka ay wax cunay rabaan in ay duceysanayaan oo Ilaahay u mahad celinayaan waxa kale ogaaday in dhaqankoodu uu ka duwan yahay midka aan telefishinada ka daawanno kadibna waxaan ogaaday fikradda aan ka qabo inaysan waxba ka jirin waxaan rabay inaan barto sida ay u duceysanayaan oo kale rabitaankayga ayaan waxaan go'aansaday sidooda oo kale inaan aniguna u duceysto laakiin waxaan ku wehensana jiray dhameystirka magaca Sayid Ciise Masiix waxay u duceysanayeen sida iyagoo xiriir dhow la leh Ilaah sida wiil iyo aabihi wax walba oo noloshooda roon ayay u duceysan jireen laakiin waxaan ku tukuna jiray aayadaha Quraanka ee afka Carabiga ah oo anigaba aanan garanaynin macnahooda waxaan isla garanay inaan ka hadalno dhinaca diinta asalkeeda Ilaahay iyo nasliga aan ka nimid ayagana waxay weydiin jireen wax ku saabsan diinta Islaamka anigana sida oo kale wax iyaga diintooda ku saabsan ayaan weydiin jiray markay ii jawaabaanna kama ogolaan jirin ma sidaan baa Kiristaannimadu kadibna kitaabkooda Injiilka ah ayay daliil iga tusi jireen waynu wada akhrisin jirnay kadib waxaan jeclaaday inaan kitaabkooda barto waxaana ka baryay kitaabkooda in ay isiyaan si aan nafsadayda u akhristo kadib waxaa dhacday in aan mar walba hoos u akhristo waxaan mar walba xiiso u qabay inaan akhristo nolosha Sayid Ciise Masiix laakiin Sayid Ciise Masiix ayaan garan waayay kan uu yahay waxaa la isoo bari jiray in uu Ilaah kali yahay waxaana la ii sheegay in qofkii aamino in Ilaahana guursado cunugna dhalo ay tahay kufrinimo arrinkan ayay nafsadayda necbaan jirtay oo na diidi jirtay waxaa kaloo kitaabka Quraanka ah lagu sheegi jiray in
nabi ciise oo ka mid yahay 25 nabayaal oo ilaah laakiinse oo ilaah nabiyaal ka weyn yahay waxna dheer yahay aniguna ilaah aan wax xiriir toos ah la yeelan karin oo aanan si toos ah ula hadli karin laakiin saaxiibaday waxay ii sheegeen in injiilkooda uu cadeynayo inuu ilaah ayaga aad u jecel yahay aadna u dhowrayo haddana aad u daryeelayo kana dhaxeeyo xiriir wanaagsan sida wiil iyo aabihii muslimiinta waxaan aaminsanahay in ilaah iyo inagu aad u kala fognahay oo xiriir dhow aanan yeelan karin laakiinse waxaan ku fikiray in labadan kitaab midhaa hal noqon karin kitaabka quraanka ah wuxuu sheegayaa in kitaabka injiilka ah wax badan bedelan yahay oo aad u gudisan yahay si kastaba ha ahaatee mar walba oo aan nafsadeyda u akhrisanayo kitaabka injiilka ah fariintiisa aad baan ugu jiray runtii waxaan gartay inuu kitaabka injiilka ah shaki la'aan yahay kalamka ilaah laakiin aniga cabsi daraaddeed ayaan u qaadan waayey aniga waxaan ahay gabar Soomaaliyeed haddii aan ogolaado runtii guri reer iyo nolol cusub ma yeelanayo waxaana ka yaabaa in la idilo laakiin mar alle markaan saaxiibaday u dhowaado oo qoraalada akhristo ayay reerkaygu aad iga xumaadaan waxay weydiin jireen halkee baa ka keentaa qoraaladan sirta ku akhrisatid in aad su'aal weydiisid ma ahan su'aaloo dhan waxay u haystaan iyagu inaan aniga diinta islaamka ka shakiyay dadka kale iga sooceen oo aad baan u cidlooday markaasaa walaalkay wuxuu bilaabay in uu igu qasbo in aan daawado filimaan wacdi ah oo diinta kiristaanka wuxuun ka sheegaya iyo weliba in aan lala saaxiibin dadka kiristaanka ah oo xataa gacanta lagu salaami karin wixii la iga reebayay ayaan ku dhaqmi jiray markaasaa walaalkayna runta u sheegay oo ku iri walaalow arrinta sidaad moodaysid ma ahan oo wadaadada muslimiinta ku tilmaamaan laakiin intii uu canaantay ayuu igu jawaabay maxaad noo ceebaynaysaa wacdiga wadaadada ma rumaysanid miyaa oo adiga miyaad gaalowday sidaasaa waalkay iyo qaraabadeydaba igula coloobeen markaas kadib waxaa liiga waday magaaladii weyneed oo liigu celiyay tuuladii baadiyaha ahayd oo aniga raalli ka ahayn markaan tuulada tegay wadaadada waxay igu bilaabeen in 5 maalmood quraan isaaraan oo taxliil ii tufaan iyagoo u malaynaya in ay iga dhaawayaan shaydaanka kiristaanka ah waxayna yiraahdeen kuwayse qaado waayo waxay aaminsanaayeen in aan sidaas ku daahirsimaayo laakiin run ahaantii wax walba waxaa ka weyn wixii aad adigu rumaysan tahay ducada aad ducaysanaysid waxaa ka horeeya in qof rumaysid leh aad tahay ducadan aniga aan ducaysanhayo waxba ma ahayn laakiin waa la igu qasbi jiray qalbigaygana ma ogolaan jirin nolosha ay ayaga ii qorshaynayeen aniga uma baahneen waxaan u malaynayaa inay dhimasho oo kaliya ii hartay go'aankaygana waan qaatay noloshaas iyo diintaas ima anfacayaan waxay ahayd inaan tuulada ka cararo hooyaday ayaa igu canaacashay waxayna i tiri hooyo macaanto waan kuu ducaynayaa hayga tegin adeerkaa kaalmadii uunu siini jiray oo dhan wuu naga goosanayaa waxna ma haysanno annaguna dhibaato awgeed ayaan u dhammaan doonnaa anigana hooyaday waxaan ka baryay in ay ii oggolaato in aan cararo maadaama naftaydu ay rabin noloshaas ugu dambayntii waa iga yeeshay kadibna waxaan xirtay indhashareer si aysan wejigayga dadka u arkin daacaddiimeed igama ahayn waa waddada kaliya oo ii furneed oo ma heli doono fursad kale oo aan ku baxsado
waxaan halay baabuur diyaar ah oo hal kursi ka bannaan ayaan nooliga iska dhiibay waxay ahayd inaan rucleeyo wadnahaygana aad ayuu u garaactamayay anigoo cabso badan i hayso kana shakisan in la iga daba imaado mar warba ilaah ayaan baryayay inaan mar un baxsado laakiin 2 saacadood kadib ayuu baabuurkii naga jabay dadkii dhan way ka soo degeen laakiin aniga kursigiiba kama kicin bannaanka ayaan waxaan ka arkayay dad baabuurka hoostiisa ku jiraan oo samaynayaan waxaan maqlayay shanqartooda laakiin maba ku darsinin kursigayga ayaan iska fadhiyay anigoo aad iyo aad u cabsi qaba markasta waxaan islahaa armay kaa soo gaaraan ehladii aad ku soo baxsatay aad ayaan u rajo dhigay laakiin waxaan soo xasuustay injiilkii sayid ciise masiix ku saabsanaa iyo mucjisooyinkiisii waxaa kaloon soo xasuustay casharadii saaxiibaday iga sheegi jireen iyo sidii u bogsin jiray kuwa buka awooddii ku soo noolayn jiray kuwa dhintay markaasaan is idhi runtii hadduu sayid ciise masiix awooddan leeyahay anigan dhibkaygan wuu iga bixin karaa markaasaan garwaaqsaday inay rajadayda isaga oo keliya tahay sayid ciise masiixow haddii aad tahay runtii wiilka ilaah oo aad samaysid mucjisooyin waxaan kaa baryayaa in aad mar un i badbaadisid waa markii iiga horraysay oo aan magaca sharafta leh ee rabbi ciise masiix ku ducaystay isla markiiba dareen ayaa i galay gacan ayaan garabkayda ka dareemay oo cod tartiib leh ayaan maqlay haa waan ku badbaadin karaa markaasaan jeestay si aan u arko qofkii ila hadlaayay maana arkin laakiin waxaan ogaaday in uu yahay rabbi ciise masiix oo iskay dareensiinayay keligay ma ahayn walwalkii dhan wuu i daayey oo waxaan maqlay aniga iyo dadkii baabuurka ila saarnaa waan wada faraxnay baabuurkiina wuu hagaagay isla markiina waan dhaqaaqnay runtii ducadayda rabbi ciise masiix wuu iga aqbalay runtii waan badbaaday dhibla'aan ayaan magaaladii ku yimid oo ilaa haddaba aan ku noolahay marnaba dhaqankayga ma beddelaayo waayo aniga gabadh Soomaali baan ahay sidayda hore ayaan u libisanayaa oo cuntadaydii ayaan cunayaa laakiin niyadaydu wanaag bay isu beddeshay waxaan ahay gabadh Soomaaliyeed oo dal iyo dadba lahayn hase yeeshee waxaan ahay gabar rumaysan rabbi ciise masiix dadka qaar ma oggolaanayaan in qof Soomaali ah uu xirtiisa noqon karo maalmihii igu horreeyey way igu adkeed dhimasho ayaa liigu hanjabay oo waan cidlooday dartiis baan wax walba u waayey laakiin go'aankaygu dhibkaygu wuu istaahilaa bal dhegaysta xigmaddan carabiga ah aniga iyo ummadda Soomaaliyeed oo la culowni ummadda adduunka aniga iyo qabiilkayga oo la culowni ummadda Soomaaliyeed aniga iyo reerkayga oo la culowni qabiilkayga aniga iyo walaalkay oo la culowni reerkeenna haddana aniga iyo walaalkay oo sii kala culownay laakiin aniga xigmaddaas ma qaadinin hadda waxaan u ducaysanayaa wanaag waxay ducadaydu tahay inuu ilaah badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed waayo iyaga cadow ma aha laakiin waxay u baahan yihiin in loo naadiyo warka wanaagsan ee rabbi ciise masiix waxaan dadkayga ka baryayaa inay dhabta rabbi ciise masiix ka akhristaan kitaabka injiilka iyo in xirta rabbi ciise masiix adduunka ku nool dhan ay Soomaalida u duceeyaan iyo inay soo dhaweeyaan saaxiibna la noqdaan sidaas saaxiibaday ii soo dhaweeyeen oo kale waxaan rabbigayga ciise masiix ka inuu noo soo celiyo xariirka aniga iyo reerkayga waxaan u hiloobay hooyaday dadkayga reerkayga iyo walaalkay gabadhan aad filimkan ka daawateen waa jilaa qisada ay noo soo bandhigayso waa dhacdo dhab ah gabadhay qisadan la diristay wejigeeda ma muujin karto nabadgelyadeeda awgeed laakiin waxaad maqlaysaan waa markhaati furkeeda dhabta ah gabadhan aad sheekadeeda maqlaysaan runtii waa gabarh aad iyo aad u dhiiran
una cad adag hase yeeshee dhiiranaantaas ma aha mid ay iyadu mutaysatay laakiin waa dhiiranaantii rabbi ciise masiix oo uu hibeeyey una siiyey markii ay isaga rumaysatay runtii idinkuwa waad maqashaan siduu sayid ciise masiix u garab galay gabadhan markii ay rumaysatay oo ay ducaysatay xusuusta inuu rabbigeenna ciise masiix injiilka noogu caddeeyey inuu had iyo goorba nala jiro goortuu nagu yidhi xusuusta inaan aniga mar walba idinla joogo ilaa iyo dhammaadka adduunka waa injiilka matayos cutubka 28aad aayadda 20aad sidaa daraaddeed qofkii iyada oo kale u rumaysta oo rabbigeenna ciise masiix u cabboon runtii adduunyada iyo aakhiraba wuu ku badbaadi doonaa waxaa laga yaabaa in anigiyo idinkuba aan gabadhaa la mid nahay oo wax been ah noogala sheegi jiray dadka kirishtaanka iyo kitaabka injiilka dhaqankoodana u malayn jirtay wax xun intaadan runta ogaanin maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed runta waaba laga qariyey oo wax sal iyo raadba lahayn ayaa lagu lugooyey gabadhani waxay runta ku ogaatay oo keliya markii ay la kulantay dad kirishtaan ah oo saaxiibadeed ahaayeen oo u sheegi jireen runta iyaguna toos u siiyeen kitaabka injiilka kirishtaanka si nafsadeeda ay u akhrisata sidaasay runta ku ogaatay ayaa midka isbiday inuu boqor yahay ka weyn xagga boqortooyada ilaah sheekada gabadhani halyeyda ah waa mid ay inta badan Soomaalida ku badbaadi karaan oo ka mid yihiin hooyadeed walaalaheed adeeryaalkeed iyo ilmihii ay dhaleen iyo weliba qaraabada kale haddaba soo dhowaada gabadhan waxay idiin fidinaysaa soo dhowaansho iyo jacayl weyn waxayna idiin caddaynaysaa oo ay weliba ku markhaati furaysaa inay aad iyo aad ugu faraxsan tahay nolosha cusub oo ay ka heshay rabbigeenna ciise masiix Soomaalida waxay aaminsan yihiin in rumaysadka rabbi ciise masiix la mid yahay dhimasho iyo dhaqanguur oo ay adduunyo iyo aakhiro beeleen oo weliba ay karaahi u tahay rumaysadka rabbi ciise masiix laakiinse taasi waa been runtii haddii aad rumaysan tahay waxaad caddaynaysaa oo aad ogaanaysaa inaad ka tirsan tahay xerta rabbigeenna ciise masiix oo aad badbaadadiisa heli doontid berri ma ahee hadda towbakeen rabbiga ilaaha boqorka koonka ah ayaa ammaan leh derajaha u sugnaato rabbigeenna iyo badbaadiyaheenna ciise masiix hadda iyo weligeedba nimcada ilaah iyo rabbigeenna ciise masiix iyo wehelnimada ruuxa quduuska ah dhammaantiinba ha idinla jirto aamiin haddaba haddii aad doonaysid faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan rabbi ciise masiix iyo howlihiisa filimkan isagoo afka Soomaaliga ah iyo afka Mayga ah waxaad ka heli kartaa